عبد الرحمن محمد محمود فرولة وحو علي لرأي صد العرض. عبد الولي محمد علي قاس وحو علي صد العرض. حل عرض واحد ماضي سيدا درتين waxaa madaxtinimada Puntland shanta sano soo socda ku guuleystay Professor Abdulwali Maxamed Cali Gaas. مدحوينها maanta Puntland loo doortay Dr. Abdulwali Maxamed Cali Gaas. madaxweynaha waa faraxsanahay sababtoo waxaan aaminsanahay inay Puntland meel dimuqraadiyad ka jirto. madaxweyne kasta oo joogayna uu mid kala bedelayo. aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka Puntland sida uu siiyay siyaasadda. madaxweynaha waa madaxweyne madaxweynihii hore Dr. Abdulwali Farole oo badan qabtayna waxaan aaminsanahay in loo xushmeyn doono sidii oday Puntland wax badan ugu qabtay. madaxweynaha maanta la doortay guud ahaan markaan dib u baaro doorashadii ka soo bilaabatay baarlamaanada oo dhan hoggaanka sare baarlamaanka guddoomiyihii labadii ku-xigeen intuba waxay ahaayeen kuwa ku dhacay si dimuqraadiyeed leh doorashadii maanta madaxtooyadana waxay ahayd la jaqaastii hore baarlamaankana waxay muujiyeen qabka dimuqraadiyadda habka doorashada niman ku wanaagsan aan hambalay gaar ah ujeedinaa guddiga doorashada iyo maamulka baarlamaanka oo dhan shaqaalahooda sida habsamadii waayamin ay ku muujiyeen ay noqotay meel dimuqraadiyad ku wanaagsan wixii aan laga filin daradii oo caalamkii ay joogeen madaxda EU-da maadaama hadda laga shaqeeyo midnimada Soomaaliya ee ummadda Soomaaliyeed iyo in laga soo waxyaabo soo maray والله markaan eego barnaamijkii talagalan gaas mashruucyada kalaba qolka waxay ka hadlayeen midnimada Soomaaliyeed waxay ka hadlayeen qaabka loo wajin lahaa federaalka waxaan filayaa kulleeba barnaamijka dawladda iyada soo dejin doonta xukuumadda laga garan doonaa shalay waxay ahayd maalintii isla xisaabtanka wixii la qabtay 2014 dabcan waxaanay ugu kooban ma ahayn waxay ahayd wax dadku dhan ay dhageysanayeen ama TV ka daawadaan ama idaacadaha ka dhageystaan ama goobjoog ha ahaadaane marka wax wasaaradda walbaaba qaabkii u shaqeysay waxay qabatay wixii qorshaysnaa wixii ka dhiman wixii qaban waayeen sababtu qaban waayeen inta waa ay sheegeen dabcan saasayna ku kala qiimeysnaanayaan waxaa laakiin runtii qiraya in badan oo wasaaradaha ka midii inay qabteen shaqadii loogu talagalay inta badan majority-geeda in badanna ay sameeyeen sababtii u qaban waayeen dabcan kuwo waa dhici kartaa iska fadhid noqdo waxba qabana inay jiraan laakiin waxay kusoo baxaysa kulle evaluationka qiimeynta aan samayn doono
waxaa kale oo jira wasaarado qabtay runtii shaqooyin markii aysan ku talagelin ee ka baxsanaa shaqada iyo ajandahooda 2014 kuna darsaday oo shaqooyin badan qabtay baa jira kuwaasina waa ku amaanan yihiin shaqada dheeraadka ay qabteen marka wixii waa iskabayaan haddii shaqadii loo ay mandatekeedii waxa ay sheegteen 2014 aysan wax ka qaban waxyaabaha qaarkood laakiin shaqooyin dheeraad ay qabteen laftigooda waxay leedahay tixgelinteeda marka anagu ujeedada aan ka lahayn barnaamijkan waxa weeye dabcan anagu wasaaradahayga waa kala aqaana waa la socdaa dee wada shaqayn joogta ayaan leenahay laakiin waxay ahayd ballanqaadkan u sameynay dadka Puntland oo ah in accountability jirto la xisaabtan uu jiro transparency ay jirto ay dawladda iyo dadkii isu muuqdaan ayna u caddahay dadka Puntland waxa ay dawladoodu qabanayso qofkii shaqeeya qofkaan shaqeynin xisaabtuna taa weeye aniga wasaaradaha waxay igu kala sokeeyaan si ay dadka iyo dalka ugu shaqeeyaan ee shaqada ay qabtaan ayay anigana igu kala dhow yihiin saas ayaan rajeynayaa inay maantana waxay ahayd qorshaha 2015 oo aanu rabno runtii inuu noqdo qorsho ka duwan ki 2014 hadday cusbaayeen wasiiradu in badan ka mid ah hadda environmentka iyo shaqada iyo shaqaalaha iyo dawladnimada wax badan baa hadda waxu maranaya inay uga baxsan yihiin ujeedada aan hore u sheegay waxay ahayd dad badan in badan aan ka hadlay horumarku wuxuu ku dhisan yahay haykalka dawladnimo haddii haykal dawladnimo institutions dawladnimo oo dhisan oo wanaagsan oo dadkeedii leh Soomaalida waxay tiraahdaa baa la yiri ninkii ilaahay xoolo la maago dadkeedu siiya dawladnimo haddii anagu aan rabno dadkeedii waa inay jiraan dadkeediina ay dadka hawsha qabanaya oo shaqada qabanaya taasaana keentay inaanu reformski aanu wadnay waxaan rajeynayaa marka sanadka 15 inuu nooga wanaagsanaado hawlahan qabadaynaana ay ka sii wanaagsanaadaan wixii aan qabanay 2014 dadku ayaga qiimeyn doona